shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee helista xogtaasi oo ujeedkeedu yahay in lagu muujiyo in dadweynuhu ay u baahan yihiin xog daahfuran oo sax ah oo la isku halayn karo. haddaba faaqidaada toddobaadka ee caawa waxaanu ku falanqayn doonaa sidee xog rasmi ah oo la isku halayn karo looga heli karaa hay'adaha dawliga iyo madaxda iyo waliba siyaasiyiinta ee Soomaaliya. mase og yihiin in dadweynuhu ay xaq ugu leeyihiin in ay ka helaan xogta ay u baahan yihiin. waxaa igala qayb galaya xogayaha guud ee Nusoj Cumar Faaruq iyo Cabdiqafaar Shire oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya. labadiinaba soo dhawaada Cumar iyo Cabdiqafaar. waxaan ku hormarayaa Cumar baan ku hormarayaa. Cumar, maalintan waad xusteen adinku haddii aad tihiin Nusoj, laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye hal la xusee Soomaaliya dadku ma dareensan yihiin horta inay xog in la helo ay xaq u leeyihiin? waa mahadsantahay Farxaan iyo dhammaan ka qaybgalayaasha. runtii horta maanta waa maalintan waa maalin caalami ah, maalinta shalay la xusay. waa maalin yani xaqiijinaysa xuquuq dastuuri ah oo ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed. dastuurka ku-meelgaarka ee Soomaaliya qodobkiisa 32 ayay ku taallaa, ay ku caddahay xaqa helitaanka macluumaadka. laakiin ma la dhowraa, ma la tixgeliyaa, ma la xurmeeyaa. runtii taasi waa mid aad ugu fog marka aan ka hadlayno dalkeena aan ka hadlayno. tusaale ahaan qodobka 32 ee dastuurka wuxuu dhigayaa in sharci gooni ah loo sameeyo xaqa muwaadiniintu ay u leeyihiin inay helaan macluumaad ay helaan. laakiin waxaan ognahay labadii dowladood ay isaga dambeysay maamulka dalka tan iyo markii la sameeyey dastuurkan sanadka 2012 marna ma aysan saarin xoogga in ay sameeyaan sharci damaanad qaadaya ama fulinaya xaqa muwaadiniintu ay u leeyihiin. maxaad leedahay markaa Cumar xaqii xogtii xaqa amaba sidii dadku ay u heli lahaayeen xog dawladii ugu dambeeyay arrintaasi ma aysan fulin? Cabdiqafaar Shiraan soo gelinaya oo Mareykanka qadka uga jira. Cabdiqafaar, adigu maxay kula tahay markaad Soomaaliya ku cabirtay iyo mawduucan aanu ka hadlayna maanta? farxan aad u mahadsan tahay. waan salaamaya Cumar oo dood igala qayb galaya. daawadayaasha BBC dan waa salaamaya. horta caadiyan xuska maalinta xuquuqda xorriyadda maaragtay xogta maalin inta badan aad maaragtay loo xusi jiray oo loo yaqaanay ma ahayn. waxay bilaabatay waqti aad u dhow 2015 ee markii 3 dal oo Afrikaan ah ay keeneen kulankii 38aad ee UNESCO oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka. kadibna wuxuu yimid golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kulankii 74aad oo bishii Oktoobar 2019 bayba ahaydba markii loo afsiyay in caalamka laga xuso. marka Soomaaliya laga eego waa la qabaa oo horta waa xaq dastuuri ah. xogtu waa awood, xogtu waa xuquuq, xogtu waa halbeeg markaas bulshada horumarkeeda lagu cabiro. dastuurka Soomaaliyana muhiimadda uu siiyay waxaad ka garan kartaa. wuxuu ka kooban yahay 15 cutub. cutubka labaad ayaa lagu qoray oo xuquuqaha ah in muwaadiniintu ay xaq u leeyihiin inay helaan. sidoo Cumar sheegayna baarlamaanka federaalka ayaa looga fadhiyaa inay ansixiyaan xeerka helista xogta oo markaasi muujinaya in warbaahinta iyo bulshada guudba. laakiin xaqiiqdii anigu waxaan dhihi karaa meelo dawladda hay'adaheeda qaar ka mid ah lagu ammaani karo way jiraan oo helista xogaha ah. tusaale ahaan waxaan ognahay baarlamaanka tobnaad ee hadda Soomaaliya ka jira ee ka kooban labada aqal oo ah golaha shacabka iyo aqalka sare waxay leeyihiin laba website oo xogaha halkaasi hadday noqon lahayd gudiyada hindis sharciyada la ansixiyay, kuwa madaxweynuhu saxiixay labada gole soo maray, kuwa hindisaha ee golaha horyaal waa laga heli karaa. wasaaradda qorsheynta laakiin kuwaas lagama hadlaya. laakiin kuwa ay dadku u baahan yihiin ma aha wixii ayagu qabteen, laakiin kuwa dadka u baahan yihiin. adiguna suxufi baad ahaan jirtay, wariyaasha markay su'aalayna u baahdaan weydiiyaan ma helaan. farxan waa u socdaa meesha ay labada dawladood ugu dambeeyay ka gaabiyaan waxa waaye xogna waa xogta warbaahintu ay u baahan tahay si ay bulshadu ugu gudbiso si ay u maareeyaan nolol maalmeedkooda. xogtaasi waxaan tilmaami karnaa inuu hoos u dhac weyn ku yimid maadaama dawladdu aysan warbaahin maxaa keena baad isleedahay hoos u dhacaas? dhibaatooyinka ugu badan ee ku yimaada xogaha noocaas oo ay warbaahintu sida fudud ku heli jirtay had iyo jeer waxa keena shuruuc gaar ah oo hadda sharci lagama samaynin xeerka helista xogta oo baarlamaanku intuu soo jideeyay maaragtay looga baahan yahay inay hay'adaha dawladda dhaqan galiyaan. laakiin dhibka ugu badan had iyo jeer maamulka Soomaaliya yimaada dadka u qaabilsan inay fududeeyaan xogaha noocaas ayaad waxaad moodaa inay had iyo jeer la soo baxaan istiraatiijiyad iyaga u gaar ay ku maareeyaan. waan gartay. Cabdiqafaar waan kugu soo noqonaya, waqti badanna ma hayno. Cumar Faaruq, wariyaashaad la shaqaysaa, xamar baad joogtaa, madaxaad ruxaysay
wariyaasha maxaa ku horgudbad baad is leedahay inay xog helaan horta waxaan rabaa horta in la ogaado horta mas-uuliyiinta dalka ama dowladda federaalka lahaato ama dowlad goboleedyada horta waxaa mar walba isaga qaldan xogta ay hayaan horta shacabka ay u hayaan inay ogaadaan xogta ay hayaan inay muhiim inay tahay in shacabka ay la wadaagaan marka waxaad dareemaysaa mararka qaarkood marka ay wariyaashu ay ka raadsadaan xogta ay ka raadsadaan in aysan siinaynin ama ay ka xigsanayaan ama ay u diidayaan taas waxay keenaysaa in wararka kuteenta wararka saxda aan ahayn inay horta ay sii faafaan laakiin waxaan rabaa inaan horta hal mid in la ogaado ayaa loo baahaya shuruurda waa la qori karaa websaytyada oo dowladda waa lagu faafin karaa laakiin xogaha مثلا كونتراكتيدو كلت هذا وحال ليهي هالكوديغا او سنتكان wuxuu yahay building back better يعني in يعني looga soo kabto covid ka dhibaatada u geystay laakiin waxa aan ognahay waxa waa contractiyo badan ayaa lagu bixiyay covid ka la dagaalanka covid ka lagu bixiyay cid og ma jirto cadada lacagta ku baxday cid og ma jirto contractiyo kale inta jirto shiraan hadii ahaan lahayd hadii dhismo ahaan lahayd waxaa loo baahan yahay waxaasoo kaleeto in lasoo bandhigo oo bulshadu inay aragto ayaa loo baahan yahay waxa kaleeto oo muhiim ah haddana oo wariyaasha gaar ahaan saameynaysa waxaa ka mid ah dilka caburinta xariga iyo weerarada lagu hayo xarumaha warbaahinta waxay ka mid tahay in bulshada loo diido inay helaan laakiin hadda cabdiqafaar wuxuu sheegaya in xogtaas websaytyo laga helo ay jiraan oo baarlamaanka iyo dowladda iyo kulli waxaad leedahay marka wasaaradda caafimaadka oo aanu ognahay twitterkeeda xogta maalin walba ma soo geliso أنا waxaan inaan ogaado waxa ay tahay deeqaha adduunyada ay ku bixinayso covid-ka uu ku bixinayo tusaale ahaan sidee loo isticmaalay sidee procurement-ga waxa la leeyahay sidee loo iibiyay shirkadaha sidee qandaraasyada loo siiyay ma baa lagu siiyay ma hab furan baa lagu siiyay marka la soo bandhigayo waxaas loo baahan yahay Cumar aan kugu soo laabanaya Cabdiqafaar xaq ma loogu leeyahay dowladda in la weydiiyo sida kontraktiyada loo bixiyay aad iyo aad waa meelaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay qaab kontraktiyada loo bixiyay cidda la siiyay cidda bixisay laba arrimood waa jeclaan lahaa haddii aan nahay saxafiyiinta oo Cumar hadda codkooda ku hadlayo inaan xasuusnaano xogta warbaahintu ay raadinaysa ma ahan kaliya kuwa madaxda war-saxaafadeedkooda iyo shirarkooda iyo bayaanadooda kaliya laga heli karo waa sidoo kale xogaha ku kaydsan dabarada dowladda hadda anigu waxaan ka warqabaa Somali Aims website-ka la dhaho wasaaradda qorsheynta waxa ku jira 1,080 project oo mashruuc oo Soomaaliya ka socda iyo sidoo kale lacagta mashaariicda ku baxayso oo ku dhow ilaa 250 milyan sanadkan 2021ka sidoo kale sharciyeedyo fara badan baa waxay ku jiraan bogaga bulshada laakiin waa la qabaa in laga gaabiyay xorriyadu ay warbaahinta u lahayd inay soo gudbiso kulamada madaxda kale tusaale ahaan madaxweynaha hadda waqtigiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo intuu si furan jir saxaafadeed u qabtay ay warbaahintu su'aalo weydiinayso oo si toos ay u weydiinayso kala maana arkin meelo badan oo laga gaabiyayna way jiraan meelo badan oo horumar laga sameeyay way jiraan xaqiiqatan Cabdiqafaar ma san tahay gabagabadii baan maraynaa waxaan u gudbaynaa marka xalku waxa uu yahay iyo waxaad ku talinaysaan bulshada waxa looga baahan yahay iyo hay'adaha dawliga Cumar Faaruq baan ku hormaraya muxuu yahay baad xalka is leedahay si dadku ay xog u helaan horta waxaa loo baahan yahay shacabka inay ogaadaan xuquuq dastuuri ah inay tahay oo ay u baahan yihiin inay ogaadaan xaqan inay dastuuri inay leeyihiin waxaa loo baahan yahay baarlamaanka 11aad ee hadda doorashadiisa lagu jiro iyo dowladda imaan doonto inay muhiimadda saarto in sharci sida dastuurka ku-meelgaarka uu dhigayo in la soo saaro oo waafaqsan nidaamka caalamiga waafaqsan in loo sameeyo laakiin waxaan rabaa farxaano inaan intaan tan ka tagin inaan arrin yar aan xuso oo ah Soomaaliya waxaa sanad walba ay Transparency International ku sheegtaa inay tahay dalalka ugu musuqmaasuqa badan waxyaabaha keenaya musuqmaasuqaas oo dhiirigelinaya waxay tahay qarsoodida iyo xogta la qarinayo ay tahay marka waxaa loo baahan yahay helitaanka xogta waa waxyaabaha kaliya ay sahli kara Soomaaliya xataa image-keeda iyo muuqaalkii adduunyada ay ka lahayd in la soo celiyo oo markaas ay lala dagaalamo eexda musuqmaasuqa iyo nin jeclaysiga ka dhex jiro hay'adaha dowladda ama heer federaal heer dowlad goboleed ba ha ahaato waa maasantaha Cumar Faaruq Cabdiqafaar baan soo gelinaya Cabdiqafaar adigu dowladihii horena waa la soo shaqaystay ilaa xafiis prime minister waliya waad soo noqotay taladaadu maxay tahay si waxaan loo bedelo oo dadku ay xuquuqdoodii u helaan sidii xog loo heli lahaa
marka ugu horeysa waxaa muhiima in baarlamaanka 11aad ee soo socda uu ansixiyo xeerka helista xogta oo laga dhigo xeer kadibna dawladdu ay dhaqan geliso sidoo kale waxaa muhiima si bulshadu u gaaro goobaha waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo waxbarashada sare in dadka lagu baro in waxani ay dastuur tahay waxaad ka garan kartaa dalalka Finland iyo Sweden helista xogta waxay dastuur ku darsadeen 1766 Mareykanka oo kale afartanadii ilaa lixdameeyadii qaramada midoobay oo kale 1948 ayaa markii ugu horeysay hindisa noocaana la keenay marka waxaad moodaa dalal badan oo Afrikaan oo ay Soomaaliya ka mid tahay in xuquuqdani ay maqan tahay waa in dadka la baraa oo dhinaca waxbarashada laga baraa dawladana ay kula xisaabtamaan golayaasha dawladda in la dhaqan geliyo laakiin tan ugu muhiimsan anigu waxaan dhihi lahaa bulshada ayaa looga baahan yahay inay fahmaan in qodobkan uu yahay qodob asaasi u ah maareynta nolosha haddii helista xogta xorriyad laga dhigo oo qof walba si daah furan u helo waxa xoojismaya waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo integrity-ga ama hufnaanta isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta waxayna wax weyn ka tari doontaa garsoorka caafimaadka waxbarashada deegaanka iyo dhowrista bay'ada xaqiiqdii helista xogtu ma ahan xuquuq kaliya ee laakiin waa awood uu qofku ku go'aamin karo noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo habfikirkiisa nololeed soo jeclaan lahaa inuu noolaado waa mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiqafaar shire oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo waliba Cumar Faaruq oo ah xogayaha guud ee ururka Nusoj ee suxufiyiinta Soomaaliyeed labadiina waad mahadsantihiin inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka caawa waad mahadsantihiin daawadayaal ilaa iyo habeen dambe nabadgelyo